oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha isbuucan waa barnaamijka midka ugu shidan ee Premier League ciyaarihii laga dheelay iyo kulamadii dhacay ee sida loo kala badiyay haddaba kulamada Premier League laga dheelay maanta oo lagu bilaabay Tottenham iyo waliba kooxda Manchester City oo waliba ku dheelaysay garoonkeeda Etihad Stadium ayaa lagu dubtay maanta oo 2-0 dhagaha looga tufay haddaba kulankaas iyo waxyaabihii laga bartay iyo qaladaadkii ka dhacay kulankaas ee kooxda City ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena inta socdo sidoo kale Arsenal oo ayaduna 5-0 ku xasuuqday kooxda Leeds United iyo waliba kooxda Al Ahli iyo waliba kooxda Al Nassr oo labadooda maanta dheeleen oo ugu dambeyn koobka laga qaaday Al Nassr oo halkaasi suurtagal u noqon weyday inuu Cristiano Ronaldo ku guuleysto koobkiisii ugu horeeyay kooxda Al Nassr haddaba haddii aad nagu cusub tahay saaxiib fadlan inoo share garay barnaamijka oo page-ka noo sii share garay follow noo dheh page-ka share garay like commentigana hanaga ilaawin mahadsanidin aynu ku bilaabay qaladaadkii maanta ka dhacay Etihad Stadium iyo waliba macalinka qaladaadka oo galay Pep Guardiola ciyaartooyda timid oo la soo shartagay line-up-kooda ugu horeeyay ahaa iyo qaabkay ku ciyaareen iyo waxyaabihii ka qaldamay iyo sidoo kaleento Portieriga iyo afarta difaac oo dambe oo aan innaba isla haysanin ama aan isla jaan qaadaynin dhanka ciyaarista kubadda maadaama Portierigu qalqal aad u fara badan laga dareemayay kooxdu ku cusub yahay yani waxa laga rabay ciyaartooyda inay markaasi ay boos u istaagaan sidoo kalena tababaruhu naftirkiisa laga rabay inuu markaa dhaho ciyaartooyda maadaama Brunigu ay kooxdu ay one man lagu xirto man to man lagu xirto waa ina markaasi adiga Bruniga boxiso ama dhaxda gelisa oo ama jaf u qaada ciyaartooy kaleento dhaxda ku joogo dhaxdaas ka soo geeri dan waxa suurtagal ku noqon karta marka box soo siisa Bruniga in kaaga oo qabsado ama dhaxda la isku wada qabsado oo yani adigu shidada iyo dhibaatada oo 50-50 ga ah inay ka dhalatay inay ka dhalanin ah yani way ka dhaqaaqay marka macalinkuna uma uusan kala hadlin aadin u adkeyd xaaladdu marka waxa suurtagal ah in yani ay noqoto mid aan innaba caadi ahayn oo xaaladeedu aan markaas la saadaali kareynin in kooxda City qaladaadkeedu noocaas u sii bato haddaba City waxa suugu xigo kulamo aad iyo aad u adag oo 2 isbuuc kadib Arsenal la dheelaysaa waa wishidan tahay kooxooyinka markaas la dheeli doono oo jidku ugu soo jiro aad u adag tahay marka waxaan isleeyahay kulay hadii qaabkan ay u sii socoto ama ay isku daydo inay qaabkan ku sii deysho inay markaas tartanka Premier League aysan waxba ka taraynin oo ay tartan sameyn kareynin haddaba Arsenal kulankii ugu horeeyay ee la dheeshay kooxda Manchester United waxaan aragnaa Manchester Bruniga haysato waxaan aragnaa Manchester oo cirkii dhulka ka weerartamayso waxaan aragnaa ciyaartooyda Impomo sidoo kale inta kuya sidoo kale oo weerar aan caadi ahayn wado macnaheedu waxay ahayd Arsenal ayaanan Bruni dheelaynin oo Arsenal markaasi waxyaabaha ay u diideen Bruniga dheesho ay ahayd in ay markaasi natiijo ay kala laabato garoonka Old Trafford oo ayadu ay away ay ku ahayd oo kulankii ugu horeeyay oo yahay pressure fara badan ay ku furan yihiin kulamada ugu soo sukeeyo ugu horeeyay 5 kulan ugu horeeyay ay tahay 4 koox oo adag oo ay kamid tahay Manchester United ee kulankaas la dheelaysay oo ay ka soo badisay Leeds oo hadda maanta la dheesho madax dejis u ahayd marka laga tago Liverpool ku xigto Newcastle ugu xigto waxa ugu xigto Manchester City ugu xigto waxa ugu xigto Brentford Nottingham Forest ugu xigto waxa kulamo shar ah marka 5 kulan ee ugu horeyso Premier League hadii ka tumato Arsenal waxa markaas huwaal ah in Arsenal marka kulamada dambe ay dheeli doonto si rabta ha u dheeshay markaas kubada fiican oo qurux badan iyo kubadihii lagu yaqaanay dheelis kulankii maanta aan soo laabto ay markaas Arsenal ay ayaduna dheeshay Arsenal maanta waxay dheeshay kubad aad u qurux badan kubad heshasadeedu ay aad u wanaagsanayd oo ka fiicnayd kulankii ay Manchester United la dheelaysay
waa boqolkiiba boqol waxay kaga fiicneed xagga heesashada kubadda, xagga abuurista fursadaha goolasha lagu dhalin karo, xagga difaacashada markii lasoo weeraro, xagga dhex heesashada markii dhexda weerar looga yimaado ama kubadda dhexda ay timaado. Subamendi, Rice iyo Odegaard oo isla haysteen, walow Odegaard uu dhaawacmay, kulanka ku dhaawacmay, Bukayo Saka dhaawacmay. marka waxaa aad iyo aad ay u adkaatay in marka kooxdu ay markaasi ay laga soo weeraro dhan kasto. Hadda tusaale ahaan marka ku siiyo ciyaartoyda la soo gaday maxay faa'iido u keeneen Arsenal? waxay faa'iido u keeneen ciyaartoyda maanta la soo gaday. Odegaard dhaawacmay, waxaa lagu bedelay ninka la yiraahdo Inweri markii lagu bedelay, sidoo kale Bukayo Saka dhaawacmay, waxaa lagu bedelay ninka la yiraahdo Trossard waxaa loo wareejiyay Bosky Martinelli oo ka dheeli jiray Boskyisa hore oo caadi ka dheeli jiray Trossard, walow maanta uusan muuqnayn oo kubadiisu ay kubad aad u muuqata aysan ahayn. sidoo kale into Boska oo Saka ka dheelayna waxaa loo wareejiyay Madueke xoogaa markuu dheelay 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo kala dheelay 66 markii la gaaray waxaa lagu bedelay Madueke cunugeeriya Max Darwin oo inaan aad iyo aad u da'yar oo ciyaar aan inaba caadi ahayn markaasi uu sameeyay. ciyaarta uu sameeyay waxa kamid ahayd in isla markii uu yimidba soo banoonigu u haystay dhowr jeer isku dayay inuu Jota la soo galo, dhowr jeer dribbling lagu sameeyay, foul lagu galay. haddana markii ugu dambeysay waxa uu lafdhuun dhigasho ku noqday ciyaartoyda. Jota markii la soo galay diilinta ganaaxa la soo galay, lugta dhakab laga dhaano inuu gambiya lugta igar uu istaagay dhag waa kana penalty Yogers loo taagay. Yogers waa labest waxa sidoo kale hilmaam hadal kuma jirto. Yogers gooshiisa koowaad uu ku furanayay maanta Premier League ay ahayd waxa ka caawiyay California, kubad dhexda laga soo laanjiyay loo soo qaaday afka hore markaas wuxuu la helay dhinaca koorada xageeda ku soo helay Jota oo la soo galay ama diilinta ganaaxa oo la soo galay 4-3 ayadoo joogaan ugu yaraan 2 qofood 3 qofood oo kala dhaxbaxay shalow gooshiisa waa ka dhaliyay Portieriga. marka waxa imika u muuqata laakiin kulankaas waxaan ka fiirsanayna qaladaadka ugu badnaa ee ahayd Bukayo Saka, Martin Odegaard, ciyaartoyda kale inta baalasha kala ka dhila qadka dhexe kuwa ka dhila banooniyada lama fiirsanaynin ninka la yiraahdo ama quudin ma uusan helaynin ninka la yiraahdo Yokris bosqaasha fara badan oo sameeyay, laakiin way suurtagali weeday in ciyaaryahanka la siiyo kubadda. haddii Yokris kubadda la sii lahaa inta jeer oo boos qaatay la sii lahaa waxyaabo fara badan ay sameyn lahaayeen. walow Yokris oo gool u cunyay bilowgii ugu horeysay ninka Subamendi ahaa u soo laanjeeyay ama kubad xoog oo xariiftinimo oo u soo dhex dhigay asigii Portieriga, walow markaas taana lagu qiimeyn karin in markaas Yokris oo gool ama lugta la gafay ama gool ay ahayd 90% sababtoo asigoo soo jeestay oo yani sii jeedo ayaa kubadii u aragay isla markii lugta kale ku istaagsanaa maahan tan kale ku laado oo sii jeedo dhan kale sii socod. marka kubad baa meesha ka dhacday, waxay ku badiyeen maanta 5-0 kaalinta koowaad ayay fadhiyaan maanta Arsenal, waxayna haystaan 6 gool oo nadiif ah. wax gool lagama dhalinin waa ampitin labada kulan oo ugu dambeysay ugu horeysay la furay. wax gool lagama dhalinin 5 gool oo maanta ay ku dhalayeen iyo hal Manchester ay kaga soo badiyeen. 6 gool ay haysataa kaalinta koowaad ay ku jirtaa, 6 gool ay kaalinta koowaad kula jirtaa. marka aad baad mahadsantiin asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha naga mudan. haddii aad nagu cusubtahay fadlan inoo follow page-ka, wax ka codsana ina page-ka aanan arkin ayna ka tagin ee follow ka dhigo barnaamijyadeena xigo si aad u daabato. fadlan qof kasto barnaamijka fiirsanayo 1 ilaa 2 3 qofood oo saaxiibyadiisa ha ku taageeyo page-ka, ha ku taageeyo fadlan 10,000 inay gaarsiisiina rabaa. aad bay u hooseeyaa oo waxaan markaas rabaa inay gaaro 10,000 intayna bishan dhamaanin waxaan rabaa Agosto inaan gaarsiiyo 10,000 oo followers. fadlan 6,000 maraysa 4,000 noo dhiman 6,000 marayna ina gaarsiiya. aad baad mahadsantiin. sidoo kale kulamadii la ciyaaray maanta waxaa kamid ahay Al Nassr oo iyo Al Ahli oo ay 2-2 isla galeen, rigooro lagu kala tagay 4-5 ay rigooradu ay ku qaadeen Al Ahli. halkaas Ronaldo oo ay markaas laf dhuun gasho ku noqotay kooxda Al Nassr oo nasiibkiisu aad iyo aad u liito, laki kuma lahan kooxda oo la joogo mase kooxdana laki lahayn, taas waa la kala saari waayay. ninkan kulay nasiib la'aan hayso hadii la dhigi lahaa Real buu champion ku qaaday, wuxuu ku soo qaaday Horyaalo ku soo qaaday, Copa del Rey soo qaaday, Manchester champion ku qaaday, Manchester wuxuu ku soo qaaday Horyaalo ku soo qaaday. yacni
ninka la dhihi ma karo maanta waxa waaye waxa hayso nasiib xumo hayso la dhihi ma karo hadda wuxuu qaaday koobkii Europa League uu qaaday oo macnaha jab waxa Eurogi oo la dheelayo qaadiyay yani waxyaabaha yani waxa laga yaabaa in kooxda Al Nassr aysan wax biti aysan lahayn inay koob ku guuleysato ay biti u lahayn oo laga biti badan yahay taana ay sababtay in Cristiano Ronaldo uu ku hinkoodo markasta inuu koobka qaado maadaama ay koobka final u keeneen dhowr jeer keeneen finalka laga qaaday marka aad bay uga leedataa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo maadaama kooxda si walba loo soo dhisay ciyaartoy fara badan loo keenay wayna ka leedataa laakiin wax walba waxa waayay waxa isleedahay nasiibka kooxda Al Nassr ayaa aad iyo aad u liito nasiib u lahayn inay koobabka ku guuleysato walow ciyaartoy fara badan dhaqaale fara badan ku bixisay ciyaartoy fara badan ay yimaadeen laakiin sidaad ku sii socoto waxaad filaysaa insha Allah haduu Ilaahay raado si la filayo inay koob ku guuleysan karaan kooxdaas aad ba maasantiin asxaabteyda qiimaha qayaha mudan sidoo kale to Bayer Leverkusen ayaa iyadana 2-1 looga badiyay oo Ten Hag meeshaas markaas waxa ugu muuqata ceeb inay halkaas kaga soo hooyan doonto oo Bayer Leverkusen gaarsiin kareen booskii loogu baahnaa inay la tartanto Bayern Munich oo ayaduna 6-0 ku badisay xalay sidoo kale to Borussia Dortmund ayaa 3-3 gashay Frankfurt ayaa iyaduna 4-1 ku badisay asxaabteyda aad ayaa u baahantihiin inta halkan inaga daawanayso fadlan si share gareeya like commentiga haga ilaabina YouTube ka sidoo kale to subscribe noo saara share gareeya aad baad maasantihiin tan iyo inta dib u kulmi doono barnaamij cinkan oo kala waxaan leeyahay waa saaxiibkeen baariyo wada assalamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh